wasaaradda haweenka dowladda Puntland oo weheliyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Mudug iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxa ay dhagax dhigeen qayb loogu talagalay xafiiska wasaaradda haweenka ee gobolka Mudug. Dhismahani ayaa waxaa laga dhisayaa xafiiskii hore ee gudoomiyaha gobolka Mudug qayb ka mid ah. Waxaa halkaasi hadallo ka jeediyay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Mudug Maxamed Waloore. Waxaa farxad iyo ammaanta aan ku hadlay afka maamulka gobolka Mudug inaan qayb ka noqdo dhagax dhigga xafiiska wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda Puntland ee gobolka Mudug. U mahadcelinaya wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta arrimaha qoyska Aamin Cusmaan Xaaji oo runtii dadaal badan ku bixisay xafiiskan muhiimka u ah gobolka sidoo ku horgeli lahaa dadaal badan gelisay runtii. sidoo kale waa mahadcelinaya hay'adda DRC oo iyaduna mashruucan fulinaysa iyo dhammaan in allaaliyo intii ka qayb qaadatay. xafiiska wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland gobolka Mudug runtii waxay ku jirtaa wasaaradaha ugu muhiimsan oo u baahan in la taageero waxqabad muuqdana uu gobolka ka socdo. sidoo kale isduwaha wasaaradda haweenka gobolka nala shaqeeya runtii aad iyo aad ula shaqeysa gobolka mar walba xafiiska agdhow gobolkana waa u mahadcelinaya bishaaro. xafiiskan haweenku runtii hadda ka hor bay ahayd in la helo ilaahay mahadi maanta noqday waana xafiis laf dhabar u ah bulshada gobolka hooyooyinka iyo dhammaan haweenka gobolka Mudug. insha Allah taala waxaan rajaynayaa inay noqon doonto xafiis aad iyo aad muhiim u noqdo oo lagu soo hirto. ma hadda badeed waxaan rabnaa halkan xafiiskan inuu noqdo xafiiskii haweenka kontraktarada qaatay mashruucanna waxaan leenahay sidii loogu talagalay iyo si ka qurux badan ba insha Allah taala inuu dhammaan rajaynaynaa. ka maamul ahaana kulli xilli walba kormeerkiisa waa joogteyn doonaa haddii alla idmo sidii wixii aan rabnay oo macna fiican la meesha uga soo bixi lahaayeen. waxaan rabnaa inaan insha Allah taala iyaguna waqtigooda aysan gelin meel aan macna badan lahayn qolada qadaraaska qaadatay anaguna aan kor joogteyn doono wax wanaagsan iyo xafiis qurux badan sidii uga soo bixi lahaa. aad baa u mahadsantihiin wasiir mar labaad baan kaga mahadcelinaynaa inaad gobolka aad uga warqabtid muddadii badneed oo aan ku soo noqnoqonaysay gobolka oo si dhow uga warhaysay waxa dhashay maanta xafiiskaas gadaashana boorkiisu ka muuqdo aadka u qurux badan inuu gobolku helo. muddo badan baa dayac ka jira xafiiska wasaaradda haweenka ee gobolkan maantana waxaa moodaa inuu mustaqbal fiican iyo faalo fiican leeyahay. waa kaga mahadcelinaynaa sida aad ula shaqeysay gobolka oo aad nooga warhaysid insha Allah taala anaguna wasaaradda ula shaqeynaynaa. wasiirka wasaaradda haweenka dowladda Puntland Aamin Xaaji ayaa iyaduna waxa ay ka hadashay muhiimadda wasaaradda haweenka ay u leedahay xafiisyada. Bismillahirrahmanirrahiim aad baan ugu mahadcelinayaa ugu horeyn gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka. runtii maanta waxaan dhagax dhigaynaa xarunta wasaaradda haweenka ee gobolka Mudug oo noqon doonta xarun muhiimad weyn u leh gobolka haddii la yiraahdo adeegyada caruurta iyo dhallaanka caruurta iyo hooyada iyo dhallaanka loo fidiyo oo ay noqonayso xaruntu tii ugu horeysay maaha waxa jirtay xarun hadda ka hor laga hirgeliyay adeega dawliga ah. waxaan jecelahay xaruntu inay noqoto mid u adeegta bulshada inteeda nugul oo haweenka iyo caruurta iyo inta nugulka ahba muddo baan ku taamayna inaan xaruntan helno. ilaahay xamdigiis weeye inay maanta noo suurta gelisay hay'adda DRC oo runtii dadaal badan ka wada gobolka aan uga mahadcelinayno dadaalada ay Puntland ka wado. xaruntan maanta aan dhisayno maaha mid ugu horeysay ee noo hirgashay sanadkan. waxaan hore u soo dhisnay xarunta gobolka ee degmada gobolka Karkaar degmada Qardho. waxaan noo hirgalay dhismaha guriga hooyooyinka oo isaguna Sunjiif. qorshahana waxaan noogu jira inaan gaarno xarumaha dhammaan meelaha maaragtay wasaaradda haweenku ay xafiisyada ku leedahay oo looga baahan yahay adeegyada hooyada iyo caruurtaba iyo inta nugulka ahba. ilaa idankii waxaan rajaynaynaa xafiiskan inuusan noqon xafiis caadi ah laakiin uu noqdo xafiis si run ah uga hawlgala adeegyada hooyooyinka iyo maaragtay reer Puntland ay u baahan yihiin iyo inta nugulka ahba. aad baan uga mahadcelinayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka sida wanaagsan ee u muujiyay lahaanshaha ayna uga go'an tahay inuu maaragtay gacanta ku dhigo wax walba oo gobolka adeegaha lagu soo kordhiyo. wada shaqeynta wasaaradda iyo u dhaxaysa iyo gudoomiyaasha gobolkan aad baan uga mahadcelinayaa. dowladnimadu waxa weeye in unuga dowladnimo la isku xiro taasaana macna ku wada gaaraynaa kulligeen. Ibrahim Salax Abdisalaam Ibrahim Krama Darwish TV Gaalkacyo.